السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعيال مركله كسو دواده channelka insha Allah subscribe ku dhufo intaan bilaabin waxaan rabaa insha Allah in aan la share gareeyo shan talo as a developer talooyinkan waxaan isleeyahay waa talooyin aniga xataa caawiyay dad badan caawin doon insha Allah talooyinkan waxa weey waa talooyin dhinaca khibradeyda macna intaan soo maray waxyaalaha isleeyahay waxyaalaha caawiyay waa so insha Allah waan bilaabeenaa mid ugu horeyso waxa waay markuu ugu horeyso bad code ama code aan fiicneen waa okay waa good projects yar oonan macnaha aanan lahayn utility ama wax macnaha loo isticmaalaan lahayn waa okay so hababka lagu bilaabo waxaan developmentiga dhan waxa qof kasta ku bilaabay waxyaalo oonan macnaha aanan faa'iido dad u lahayn ayaa lagu bilaabo badana so to do list app hadda dhisto waa caadi hadii aad codekaada u qurxaneen oo code iska nooc kale yahay waa okay hadii maxaa la jiray HTML CSS bis wax ku qori kartid waa okay so cidnayna ku sheegin macnaha ina codekaada ama waxaada ayna fiicneen ama meel gaarsiineen ama waxyaalahaas marka qaar kood waxa laga yaabaa marka meel ku share gareysto wixii aad soo share gareyso in qof uu ku dhaho waxaan wax fiican ma ahan ama waxaas waxba ka walwalin waxaan waxa process waay wax kasta oo bilaamo meel hoose ka bilaamaan right so marka wax baranaysid kabsuqaad graphic design marka baranaysid ama waxyaalaha UX UI design ka marka ugu horeyso sanadada ugu horeyso dhan waxyaalaha waxa sameynaysaa aan qofna arki karin oo adiga xataa la yaabaysid laakiin waa shirgareyn kartaa maxaa yeelay process ku jirta adiga ma tiid qof oo perfect markiiba qof ma jirana saas ku bilaabana ma jiro adduunka so waxaan encourage gareynayaa soo share gareeya codeka aadan macnaha ku faraxsaneen styleka ama designkaada ku faraxsaneen projectska is leedahay waa laga fiican waxaas dhan share garee so point dambana waan ka hadli doonaa dhinaca share gareynta inaa wax kasta aad soo geliso internetka oo dhaxdo okay waxaan ka shaqeynaya iska caadi waayo okay midda labaad waxa waaye in aad barato oo isku daydo in aad ku takhasusto arrimaha la yiraahdo git iyo terminalka iyo also inaad GitHub isticmaasho taasna waa dhibic kale waa laakiin hal dhibican ka wada dhigaya so maxaan u leeyahay saas terminalka waxay ka caawinaysaa horta waxyaalo badan oo programmingka waxa lagu sameeyaa terminalka waxaa kusoo dejisan kartaa barnaamijyo hadda tool kasta iyo software kasta oo isleedahay soo dejiso as a developer waxaa arkaysaa inay ku dhahayaan okay soo install garayso waxaa isticmaashaa command-kan isticmaal marka haddaadan garanayn terminalka si loo isticmaalayo dan kugu adkaanayso terminalka ma fududo macnaha dadka uma fududo dadka beginnerka ah way ku adag tahay laakiin waxaan dhihi lahaa isku day waxba ka cabsanin gal waxa ay ku dhahan ku paste garee raan garee isku day inaad ku shaqaysid inaad waxyaalo ku samaysid inaad baratid maxaa la jira commandska video anigana ka sameeyay dhalinyaro kalena way ka sameeyeen internetka ka heli kartaa meel kasta laga hadlaa terminalka midda labaadna waxaa waaye inaad baratid git iyo GitHub GitHub waa laba barnaamij oo kala duwan git waxaa waaye waa barnaamijka version controlka wax la dhaho micnaheedu waxaa waaye adiga iyo qof kale haddaa code ka shaqaynaysaan say ku ogaanaysaa qofkaas wuxuu ka shaqeeyay adiga waxaa ka shaqaysay wixii isbedelka adiga samaysay lagu ogaana waxaas dhan waxaa lagu maamulaa barnaamijka la dhaho GitHubna waa website oo Microsoft ay leeyihiin waxyaalaha dhanna Microsoft iskale wax kasta hadda Microsoft qaadatay GitHub waa website aad ku kaydsanayso codekaada so waa sida camal Instagram for code camal waaye qofkaan garanaynin waa meel macnaha codeka dhistaba aad gelinaysid uu ku kaydinaya waana free waaye publicna waa ka dhigi kartaa codekaada privatena waa ka dhigi kartaa so waxaan dhihi lahaa haddaadan hadda account u lahayn github@github.com account ka samayso waa free waaye midda labaadna GitHubka mustaqbalka haddaad rabto inaad shaqo raadsato waxaa la fiirinayaa badanaa kambaniyada waxay fiiriyaan GitHub ma leedahay number 1 number 2 waxaa la fiirinayaa meeqa waxaa soo gelisay GitHub ilaa goormee ka shaqaynaysa so waxaan dhihi lahaa haddaadan GitHub lahayn hadda samaysa GitHub isku day project yarka oo ka shaqaysay wuxuu rabaa ahaado to do list ahaado waxaa soo copy gareysa ahaado wuxuu rabaa ha ahaado ilaa mu ahaado hello world xataa ha ahaado rabo GitHub kali right because waxa u baahan tahay wax oo track record waxay dhahaan u baahan tahay macnaha wax dib loo fiiriyo ama adiga dib u fiirisid ama qofka ku shaqaalana dib u fiiriyo qofkan waa hor soo bilaabay in developmentiga yaa loo baahan yahay so for example aniga GitHubkayga haddaa gashid kumana faanayo waxa iska wax oo aan ku shaqeeyo waaybo
so waxaa arkaysaa inay ku jiraan intaas project inay ku jiraan 190 project camal inay ku jiraan waxyaalahan waa waxyaalii Gaby School iyo isku jiray waxyaalo badan oo kale iyo waxyaalahan aan ku bartay iyo projects iska simple ah hadaa fiiriso GitHub-kayga waa la yaabaysaa waxa ku jira projects oo micno dara iskaga jiro mid waxa iskaga jira like time tracker camal wax noocaas camal iskaga jiro wax micno dara ah waxyaalahaas oo dhan waxaan mar un ka shaqeeyay ka bacdan iska dhaaf hadda kor waxaan sameeyay clone waxaan ka sameeyay website-kan la dhaho Clanly waxa waa website oo aad ku samaysan kartid scheduling oo schedule ku samaysan kartid waa barnaamij software waay company-gaasna waxa iska leh nin Afrikaan iska leh waa company-yaasha waaweyn ee dadka madowga ama dadka Afrikaanka leeyihiin waay Clanly lahaa so waxaan siri you know what waan copy gareyn karaa clone aan ka samayn karaa so isku dayay laakiin markaa maraya ka caajisay waxa arkaysaa projectyaal badan oo GitHub ku jiro oon aniga sameeyay oo aan ka wada caajisay dhawaan waxaan ka shaqeeyay barnaamijkii luqad.com waa barnaamij ku baranaysid Englishka wuu ku jiraa meesha masha Allah dad badan ay igala shaqeeyay macallin Jamaal rag badan ay igala shaqeeyay so GitHub sameyso taasoo kula talin lahaa number 1 taasoo dhibic muhiim ah waa GitHub inaad samaystid midda kale number 3 dhibic saddexaad waxa waaye caadi waa hadaa dadka copy gareyso okay aniga code aan sameeyay hadaa qaadatid oo adiga aad maamulatid oo habeysatid waxba aniga kuma dhahayo siiba code-ka duya code public ah oo aadan macna private ka soo qaadanin hadda public yahay waa qaadan kartaa harta u bedelan kartaa adiga ganacsi ka samaysan kartid wax harta ku samayn kartaa also meel kale waa ka soo qaadan kartaa code waa gadan kartaa code license-kiisa wixii soo gadan kartaa saarta u bedelan kartaa waa caadi hadaad copy gareysid dad kale inaad copy gareyso waa caadi waxa ka bedeli waxa ku sameynay hadii macnaha uu public yahay ka wada of course so waxaan dhihi lahaa copy garee dadka macnaha code public ah ka qaado waxaad adigu ku sameyso habkaad u habeeso for example hadaa artina wax sameeyay hadda ka soo qaad wax baa ku fikirtay oo waxa tiri waxa sarabay inaan dhiso laakiin ma hayo aski ma hayo GitHub ka raadin kartaa so GitHub aadaysa waxa Google waxa gelinaysaa wixii artay magaciisa ka bacdina GitHub raacinaysa dad waxa arkaysaa already sameeyay wixii for example hadaa artid clone oo barnaamijkan Clanly hadaa artid clone-kiisa keyga ka raadin kartaa oo dad kala sameeyay way jiraan just waxa gelinaysaa clone ama waxa gelinaysaa waxa la noocaas ama script gelinaysaa so just it's okay waa caadi hadaa copy gareysid waxba ka walwalin cid ku fiirinayso ma lahan waa wax ku baranaysaa waxa arkaysaa dad kale si code u sameeyeen wax ka baranaysaa and then wixii fiican oo ka qaadanaysaa adig waxaad ku dabaqanaysaa hadii wax laga project kale inuu soo maro oo lagu dhaho hey waxaan rabnaa inaan sameeyno waxaan wixina ku aragtay software kala ku aragtay hadda ka hor ku aragtay codekaas caadi dib u fiirinaysaa waxa leedahay meeshaan aan ku arkay waa copy gareynaysaa ama waa sidii u sameynaysaa daarabtid waa soo qaadaysaa waxaas habkaas waa project si loo sameeyo bilowga hadhow marka barnaamijku weynaado oo lacag lagu bixinaa waxaas yaa si original code lagu sameeyaa oo qof uu qoray laakiin in general haduu project iska hobby ah ama adiga iska sameynaysid hadaa copy gareysid dad kale iska caadi ah wax weyn ma ahan dhibicda kale afraad waxa waaye waxa aad taqaano wax ku dhis waxay noqotaa maanta dad taqaan HTML bas ah barnaamij HTML dhis barnaamij HTML CSS dhis wax ku dhis wixii rabtaa noqoto haduu qofku dhaho ka soo qaad waxaan rabaa waxaas iskaba dhis baadi maxaa ka galay waqti yar gali dhis GitHub soo gali hada wakaas waa dhisay hadii artina meel gaarsiis waa gaarsiin kartaa hadii kale just wuxuu ku noqonaa project portfolio meesha iskaga jiro wax un dhis adiga waxay noqotaa hadaad JavaScript taqaanid API-yaasha isticmaalka ta soo jiidan kartaa waxa laga yaabaa inaad sameysid prayer tracker ama prayer maxaa la jiray waqtiyada salaadaha wax sameeyo waa sameyn kartaa waxaa sameyn kartaa maxaa la jiray barnaamij oo isbitaalada camal meelihii ku kala yaalaan waxaas laga fiirin karo waxa rabta adi wixii ay isleedahay markaas qof buu anfacaya ama isleedahay fikrad fiican oo kugu soo dhacday ama meel aad ka maqashay oo isleedahay oo waa fikrad fiican waaye oo jeclaan lahaa inaan sameeyo fikrad noocaas samee maxaa waxa oo simple samee oo adiga aad ku falfalaada iska samee no problem that's it that's habka loo barto saas waaye waxba ka cabsan just iska gal
meel ka bilaaw hadaa meel ka bilaaw aadan garanaynin waxa raadsaa code already oo qof qoray oo meel uu ka bilaabay code-ka soo qaado ku sii dabaq hadaa rabtid inaad ka soo qaad aadan rabin inaad qorto CSS ka waxaas waxa ka raadinaysaa meelaha CSS ku jiraan for example camal hal jiro website-kan la CodeBen waxa ku jiro projectyaal yaryar oo CSS ku jiro so Google waxa ka raadinaysaa wixii arabtay ka soo qaad raadinaysaa box camal waxa leedahay contact box CodeBen waxa halkaas dad badan oo kuwa kala duwan qoray waxa soo qaadanaysaa code-ka modify ku sameynaysaa waxa ka bedelaysaa waxa gelinaysaa adiga that's it so waxaan lagu sheegaa code-ka dhan wax la isku geeyo wax ma ahan oo qof uu zero do ku bilaabay way jiraan projects oo qof zero do ku bilaabo oo wixii dhan qoro laakiin inta badan waa just qayb waaye qaybna waxa la meel laga soo qaato qaybna waa la qoray oo isku jiraan hadhowdi markii aad meel koro gaarto adiga zero ka qoran kartid code-kaada oo zero ka soo bilaabi kartid mid ugu dambeysana waxa waaye oo hadda korna aan sheegay wax kasta oo samayso soo share garee okay so meelaha Somali programmers camal oo group waxa jiro Facebook oo Somali programmers linkiga hoos ku jira soo tuur wixii aad qortaba waxa dhahdaa kana code-kana qoray qofka rabo inay la shaqeeyo uu soo gali karaa GitHub uu soo galin karaa hatta waxa ka dhigi kartaa barnaamijka open source ka dhigi kartaa waxa dhigi kartaa waxaan bilaabay barnaamij open source waxa waaye barnaamij iskala shaqeyn karaan dad badan oo free ah oo code-kiisu xisna public yihiin qofkii rabo inuu wax ku soo daro GitHub uu soo galaya wuxuu soo sameeyaa wax la pull request waa fiirin kartaa raadin kartaa wixii tahay GitHub macnaha waxa waaye qofkan isbedel aan sameeyo ku leeyahay isbedelkiiga waxa ku dartaa code-kaada waa fiirinaysaa review ku sameynaysaa waxa dibicna ku sameeyaa waa ku daraysaa code-kaada saas isku shaqeynaysan hadaa rabtid xaafadaada ama magaaladaada ama dadka taqaan ama dhalinyarada iskuulkaada waxa leedahay project waxaan ka shaqeynaynaa open source qof kasto ku soo darso waxa laga yaabaa hadda inaad iskuul ku jirto waxa fikrad waxa ku soo dhacday project yare waxa leedahay aan isku dardarsano qof kasto qofka rabo in loo sharaxo wixii waa u sharaxaysaa waxa leedahay barnaamijkan saan waaye code noocan isticmaalana iyo luqadda noocan saan ku sameynana so just waxa waaye waxaan arkaysaa waxbarashada dhan waxa waaye waa activity waaye waa wax socdo so wax inaad samaysid waaye waxay noqotaa waato hadii hadda beginner tahay oo HTML CSS camal taqaanid HTML CSS ku bilaaw adiga waxaan noqotaa qofka lagu yaqaan HTML CSS waxa dhahdaa waxa qortaa code badan oo ku saabsan waxaas ka bacdina si tartiib waxa ku gashaa JavaScript framework-yada ku gal saas qor ugu soco backend-ka xoogaa yar ka baro ku soo dar waxa laga yaabaa project hadda kor ku dhistay HTML CSS inaad ku dari kartid backend-gana ku dari kartid marka meeshaas gaarto so si tartiib wixii badana waxaan arkaa dibka ugu weyn waxa waaye qof kasta waa wuxuu noqday wixii ku batay qof kasta oo rabo inuu wixii barto waxyaalo badan maalinta waxaan ka hadlayay Next.js iyo in isbedeshay iyo waxyaalahan dad badan oo beginner oo bilbilaabaya waxay dhahan macnaha ku wareereen oo dhahan wixii hore isbarinayno dhan ku tagmiya marka waxa baranayso ku tagmaa wax kasto hadda aad taqaanid ama baranaysid waa wax muhiim ah waa wax kuga caawinaya inaad wax kale sii barato okay laakiin waxa hadda haysto inaad wax ku dhisto inaad ku bilaawdo inaad dadka la share gareyso inaad dadka u sheegto waa inaad maxalli jir community dhex gasho meelo badan waxa jiro oo dad macnaha kala hadli karta sida hackathon-ka iyo waxyaalahaas wax baa ku sameyn kartaa waxay noqoto meesha joogtid iyo online-ka meel kasta ka helaysaa dad maxalli jiro waxaas xiiseenaya ama raba inay bartaan ama raba inay kala shaqeeyaan barnaamij oo simple ah bilaabi kartaa very simple waxa bilaabi kartaa barnaamij yar oo qof kasta ku darsan kara wixiisa waxa anything so wax bilaaw ka bacdina meel gaarsii saasa ku baranaysaa wixii markii aad derbi ka hor imaado for example amal project dhisaysaa waxba ka hor imaaday waxa la saan ku xaliyaa barnaamijkan qaybtan saan ku xaliyaa waxaan iga hor imaaday Google ka raadinaysaa ama dad weydiinaysaa ama qof kala ka wada hadlaysaan and then waxaas marka xaliso waxaas waa baratay dib hadii kaaga imaadaan hore ka garanaysaa so that's habka lagu barto ugu fiican waa saas waa so inshallah intaas rabeen aan la share garay aad ma sitiin qeyl idin rajayna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh subscribe ku dhufo